قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. runtii qalbiga ay xaruuraya markaan xusuusto dareen adag bay u leedahay. waxaan marka ku weynayaa dhalinyaradaas in ilaahay ka baqo iyagaan ummadna u turin xitaa aakhirada ay u baqaan laguma gaaro guul inaad dadkaaga layso qarxiso weliba haldoorkii aad ka ogaasa weligaa ku gaari mayso. Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed waxaan horta ilaahay ka rajaynayaa ummadda intuu noolaa su anfacay geeridiisa ilaahay inuu ku cafiyo doono waan rajaynaya. runtii qalbiga ay xaruuraya markaan xusuusto dareen adag bay u leedahay. waxaan rajaynayaa ilaahay inuu gaarsiiyo darajada ugu sarreysaa waa darajada nebiyadu gaaraan. nebiyada gaaraan wey, laakiin wixii ka hooseeya darajo bini aadan gaaro meelba ay damqanaysa. ilaahay waxaan ka baryayaa inta uu noloshiisa ummadda ku anfacay markii uu dhintay ka bacdina khayrkii uu ka tegay ilaahay ummadda inuu ku anfaco ilaahay ka rajaynaya. darajo bini aadamku gaaro oo darajada ilaahay bixiyo nebinimadii rususha ah wixii ka hooseeya nebi darajadaas nebi mawcid kale ma gaari karto. darajo bini aadan gaaro ta ugu sarreysa ee ku xigta waa sidiiqiin darajada la yiraahdo ilaahay inuu gaarsiin ilaahay ka faraya. ummadda Soomaaliyeed meelay joogto anu markaan geerida maqlay waan jiifay telefoonkuna codkaaga xidhnaa mar qoraa la iisoo dad badan iisoo galeen oo la ii sheegay geeridiisa. runtii muddo dhan baan ka kici waayay fadhiga waan awoodi waa inaan kaco sidaan argagaxay. ummadda Soomaaliyeed meelay jiraan ciddii maqashay horta markii ugu horreysay waa rumaysan waayeen dadkii waa rumaysan waayeenba yacni waxay ku noqotay faajico weyn oo aan la sawiri karaynin bay noqotay. jirkiisa way googooyeen ilaahay ha googooyo way gubeen allah ha gubo isagu shahaado helay laakiin dhibteeda tan waa ka raaxaystay. sida qof kasta oo Soomaaliya oo yaqaanay oo maqlay Sheekh Cabdinaasir oo maqlay waa argagax meeshiisa waa argagax. qof kasta oo yaqaanay waa argagax ummadda Soomaaliyeed. dad waxaan garanayaa markay maqleen naxdintii ay naxeen dadka qaarkii xitaa si kala noqday ilaa dhowr cisho hurdadii iyo hadalkii iyo cuntadiiba ay ka tagtay. naxdinta qaarkeed qofku saamaynta maskaxda iyo neerfayaasha waxbay yeeshaa. dadka qaar baa indha beela naxdinta qaarkeed qaar baa faalij ku dhuftaa dadka. waxaan rajaynayaa intii aan aqoon ee markaa maqashayna inay markaa ku baraarugayso ogaanayso sheekh gobolka Sool iyo deegaanka uu sheekhu deganaa ee ummaddu ka taqaanay waxay u dareemeen si aan la sawiri karaynin.
ummaddii meeshaa joogtay saqiir iyo kabiir rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel qofkii kaa hor yimaada oo aad isweydiisaanba ilmu iska tiraya indhaha nin culus oo ummadda ku dhex jira oo jaanib kasta u anfacay ayuu ahaa sheekhu raximahullah. geeridu waa xaq waana mid wada sugaysa dhammaan noolaha koonka ku nool laakiin sida eebbo qur-aankiisa ku wariyey qofkii ruux muslim ah xaqdarro ku dila waxa uu eebbo abaalmarin oga dhigayaa jahannamo oo uu weliba ku waari doono. 22 bishii labaad ee sanadkan 2022 ayay ahayd markii Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo ka tirsanaa culimada Soomaaliyeed lagu qarxiyay gaarigii uu saarnaa xilli uu ka soo baxayay masaajid ku yaala magaalada Kismaayo. waxaa qof kasta oo muslim ah maskaxdiisa ku soo degdegtay su'aalo ay adag tahay in jawaabo loo helo oo ah yaa dilay Sheekh Cabdinaasir maxaa loo dilay. horta sheekha raximahullahu ta'ala raxmatan waasi'a qaabka uu dhintay isee loo dilay waa sida maanta Soomaaliya waxna loo dilo waxna u dhintaan qofka bini aadanka ama bir baa disha ama bas baa disha. waa ogtay wadanka Soomaaliya ee qaraxiyo dilal qorshaysan ayaa hardoorkii ummadda Soomaaliyeed nooc walbay ku tahay culimo kaliya ma aha bay ku dhamaadeen. sheekhuna wadada maray raximahullah sheekhu waa Kismaayo tagay saad tilmaantayba khayr iyo cilmi iyo diin buu tagay aqalna kama soo dhisanay adduunna kama soo qaadanay arrin kalena meesha uma tigin amar kalena ma soconin qabrigiisa halkaas uu ka qodnaayo in uu ku dhinto ahayd. dadka deegaankan degan iyo ummaddu waxa ay aaminsan yihiin sheekhu inay dishay xarakada al-shabaab oo qaraxaasi ka dambeysay raximahullah raxmatan waasi'a. adduunyadana maanta isaga waa ka hoyday laakiin ciddii dishay bay maanta dhibaato haysataa. marka dadka deegaanka degan oo dhan otomaatikiyan arrintaas dadku aaminsan yahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ama cid ha kaga dambayso ama cid kale ha ku jirto horta dadku saasay u aaminsan yihiin. maxaa loo dilay khayrka uu waday culimada Soomaaliyeed uu kamid yahay aqoon-yahankeedu kamid yahay nin sooyaal taariikheed joogay buu ahaa nin weyn oo maanta dhowr iyo 60 jir ah oo xukuumadii Soomaaliyeed mas'uul ka ahaan jiray oo wadanka iyo garanay midnimada iyo dawladnimada ummadda Soomaaliyeedna had iyo gooraale kuna baaqi jiray dadkana ugu yeeri jiray in dantoodu ay ku jirto inay Soomaali mid noqoto oo walaalowdo oo ay wixii cadawgeeda iyo wixii kale meel uga soo jeestaan. diinta iyo khayrka uu waday kaalinta weyn uu ku jiray wadadii raggii ka horeeyay la mariyay unba ilaahayna qadaray isaguna inuu mara sheekh raximahullah nin isog inuu dhimanayana wuu ahaa. weli anigu dadka aad ugu dhow baan kamid ahaayo wuxuu dareemayay Soomaalidu waxay tahay nin weyn wadkii waa yaqaan ajashiisu inuu dhowdahay wuu dareemay. wuxuu igu oran jiray maxamuudow waqtigii ambiyada ay ku geeriyoodeen baan joogaa anigu waxaan u maleynayaa cimrigaygu inuu iska kooban yahay waqtigii badan ima harin 63 baan joogaa Abubakar iyo Umar iyo rasuulku cimrigaasi ku dhinteen. nin dareensan buu ahaa geeridiisa iyo dhawaanshaha waqtigii soo dhawaaday dadaalkeedina waa ka muuqday. marka tiraahdo taxadar oo sheekh meelaha khatarta iska jiro is ilaali oo cadowgu waa badan yahay oo kaasoo anigu adduun intaan soo joogi lahaana waan joogay waxaan dhaqi lahaana waan dhaqay. khaatimo wanaagsan ilaahay waa ka rajeynaya maanta kii aniga igu aakhira seegaya isaga u taala booran jiray. waxaan shaki ku jirin ciddii dishay Sheekh Cabdinaasir horeyna u dishay culimo badan oo Soomaaliyeed haldoor iyo dad badan oo bulshada indha u ahaa in ay dilkooda ku aakhira seegeen shalayto iyo nolol ciriiri ahna ay ku nool yihiin. waxa uu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam eebba weyne ka wariyay xadiisul qudsi uu eebba leeyahay ciddii la colaytanta wali ilaahayna ay culimadu ku fasireen culimada alla ka cabsiga iyo fidinta diinta islaamka lagu yaqaano. ilaahay wuxuu u ballan qaaday in uu la dagaalamayo qofkii uu eebba la dagaalamana waa mid halaagsamay. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. رسول كان وحي بليه صلى الله عليه وسلم
لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. حديث صحيح مسلم. الدنيا أردن إن الرقمة أو أي زوشه أو أي بعضه أي إلهي أكتيس كفضت روح مسلم الدلكيس. oohinta naxdinta iyo murugada bulshada Soomaaliyeed waa mid ka turjumaysa iftiinka weyn ee bulshada ka dumay iyo curyaaminta loo geystay culimada had iyo goor ku hawlana koryeelida diinteena suuban. Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed waxa uu ahaa caalim waqtigiisa iyo noloshiisaba u horay fidinta iyo koryeelida diinta Islaamka, waxa uu soo saaray culimo badan oo maanta caan ka ah adduunka. wuxuu ahaa nin 50 sanadood ku dhawaad dacwada ka shaqaynaya iyo diinta sidii loo baahin lahaa marxalado kala duwan ka soo maray isagoo dhalinyaro ah oo wax baranaya isaga oo akademiyadii ku jira ee militariga isaga oo sarkaal ah oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid ah isaga oo macallin iyo daaci ka noqday wadanka Yemen muddo 10 sanadood ah iyo ugu dambeyn 30 sanadood oo xiriir ah oo uu dalka gudihiisa ka waday dacwada saldhigna ay u ahayd magaalada Laascaanood guud ahaanna dalka meeshii looga baahdaba dacwo ku tagayay majaalo kala duwan ka shaqeeyay oo xagga waxbarashada gaar ahaan diineed iyo midda kaleba dacwada iyo dadka in la soo hanuuniyo iyo samaha la faro xumaha laga reebo bulshada in xaqa iyo diinta loogu garsooro oo dadka isqabta maxkamad sharci ah lagu kala saaro qabaa'ilka iyo dadka isqabanaya in la heshiisiyo wacyigelinta iyo tawjiiha guud ee bulshada tarbiyada dhinacyo fara badan baa sheekha hawshiisu ay soo galaysay ujeedada uu u tagay magaalada Kismaayo sheekhu waxay ahayd ujeedada dacwo muddo 9 bilood laga joogo ayaa laga codsaday magaalada in uu soo booqdo oo waa mare dacwada uu u faa'iideeyo tawjiihaad iyo wacyigelin guud kutubna uu ka soo akhriyo oo waqti ugu yaraan bil ah la soo jooga magaalada talabaadna markaskii Sheekh Shariif Cabdi Nuur ee magaalada laga furay ee culimada lagu diyaarinayay sheekhu maadaama uu mu'asasada tacliimiga oo fara badan wax ka aasaasay uu kormeerayay uu qaar maamulayay muddo badan uu tacliinta ka soo shaqeynaya khibrad dheer u lahaa sheekh caalimana uu ahaa inuu khibrad maamulka iyo macallimiinta u gudbiyo markaska Sheekh Shariif Cabdi Nuur ardaydana uu siiyo duruus waqtiga gaaban ee uu magaalada joogo magaaladana inuu u faa'iideeyo dacwo ahaan kutubna uu ka akhriyo nadwooyin habeenada ee aakhir usbuuca uu qabto wuxuu caalim Soomaaliyeed muslima aan ku barida iyo jahli bixinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee muslimka ah furidda macaahidda kor u qaadida wacyiga iyo aqoonta bulshada wuxuu ahaa shakhsi ku suntan dulqaad iyo sabir wuxuu ahaa qof ku dhiiran ku dhacna ku leh waxa uu arko inay khilaafsan tahay ujeedooyinkii diinteena wanaagsan qiimaha badan wuxuu ahaa macallin soo saaray arday aad u badan wuxuu ka mid ahaa shakhsiyaadka aniga igu leh saamaynta iyadoo kooban Sheekh Cabdinaasir Sheekh Cabdinaasir eebaha u naxariistay waxa uu leeyahay sooyaal taariikheed oo qoto dheer waxa uu dadaal badan geliyay barashada culuumta diinta Islaamka kadibna waxa uu noloshiisa oo dhan geliyay sidii uu culuumtaas ummadda ugu sii gudbin lahaa haddaba maxaa ka mid ahaa raadadkii iyo dardaaranadii uu Sheekh Cabdinaasir culimada Soomaaliyeed uga tagay inta aan la qofsanin Cabdinaasir صح ummadda Soomaaliyeed culimo badan bay leedahay laakiin waxyaalaha uu aan oran karo kaga duwanaa waxa ka mid ahaa wuxuu ahaa macallin ana kelmadaasi waxay xambaarsan tahay wuxuu ahaa macallin soo saaray arday aad iyo aad u tiro badan saadartaadu gor wax ku hamin jiray inuu soo saaro jeel jahliga ka fog aqoon-yaraanta ka fog diinta fiqhi waasac u leh aan korka xaadis ahayn saadarteed wuxuu gor ku hamin jiray inuu معاهد iyo iskuulo lagu barto diinta u furo deegaanka hadda sheekhu ka yimid markuu Jubbaland imanayay Soomaali area-deeda way yartahay tuulo ama degmo aan macahad ka furnay macahadkaasna uu yahay marihii Sheekh Cabdinaasir
bal waddanka intiisa kaleba u gudbay raabidada ama isku xidhka ama wadallada ay leedahay macaahidda islaamiga ah waddankeena ka jira inta badan waa macaahidii Sheekh Cabdi Naasir ama asaaska wax ku lahaa ama macallimiinta wax ka dhigaysay ardaydiisa ahaayeen sida hadda kii Kismaayada ay u yimid mas'uuliyiinta ugu waaweyn ay kamid ahayn ardaydii Sheekh Macad Furqaan wax ku soo baray marka wuxuu macallim rabay inuu soo saaro jiil diinta aad iyo aad u fahamsan waa sax Sheekh wuxuu ku fakarayay inuu asaaso muassaso weyn oo culumta diinta islaamka lagu barto معهد ومقع داري تكوين العلماء سمينت علماء لأن يردنا ما قف كسود مارت أقوان حبارسان بأنت أوجو مستواها سريسة يسوي نادان ودل نوعي ودي أقوان تذكر لوجو سيقاض عمرك كوها مني كندر دار ما يرحمتي وقف كسامان السوشيال ميديا وكهري كرادورة هذه دردارنا دي جدا بيسي إنه كم هذه أنا إيمان waxaan rabaa inaan maxad ama muassaso caynkaas aan asaaso muassaso geeska Afrika oo dhan u noqota il ay ka cabaan aan ku koobnay xataa Soomaalida oo kaliya geeska Afrika oo dhan il ay ka cabaan u noqota oo dhagax dhigay oo meel dhagax dhigay xataa jirta oo in la hirgeliyo hada loo baahan yahay marka hamigiisa uu la noolaa lana dhintay dardaarankii uu ka tagayna ka muuqanayay wuxuu hamiga waxbaridda ee jahri ka saaridda iyo aqoon xumada la dagaalankeeda marka sacankaas oo weyn inuu asabu ku fakarayay deegaanada ka fog sidii boodin oo kala ah dadku ay cilmiga u tafaruqaan oo halkaas seexdaan maraafiqdii ama waxyaalihii u baahan karo qofkaasi oo dhan uu ka helo dad xirfadeedii aqoonteedii lana loo keeno khasab maaha inay noqdaan xataa mujtamacna Soomaaliyeed oo kaliya cid ka soo buuxin karta shuruudaha caalim sameeyay caalim la sameeyo cid ka soo buuxin karta dowrka doona waxa ku yeesha inuu ka qayb qaato fikirkiisa hamigiisa hadda Sheekh la dhintay hadaladiisa ugu dambeeyana kamid ahaa kaasoo raximahullah culimadana xataa diin ahaan waxa la yiraahdaa dardaaranku waa waajib in la fuliyo hadii aanu saddex arrimood wax xambaarsanay inuu diinta khilaafsan dardaaranku haduu diinta ka soo horjeedo qof yiraahdo meel khamriga lagu cabaha la yidhiso lacag bah loo hayda loo dhismay inuu yahay wax la awoodi karo oo la samayn karo haduu yiraahdo cirka dhexdiisa ha laga sameeyo masjid laga sameyn karo lama awoodi karo la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha shardiga saddexaadna inaanu maaragtay ka badnayn hadii xoolihiisa laga samaynayo استحمالاته مال وحي وكتغي hadii muslim kala ku soo qadaysanayaan iyadu way furanta dardaaranka marka sheekhu ka tagay waajib ay naga saaran maxaa yeelay waynu samayn karnaa maxaa yeelay waa wax diinta aan ka hor imaan bal diintiiba de saacidayo kaalmeynaya xoolihiisana ka sameeyeen waxaan rabnaa inaynu inagu qadarinayna waajibku inagu lahaa iyo abaalku inagu lahaa gudayna inaynu marka bulshada Soomaaliyeed u qumtaan rabaa بورما إلا ما إنتن قرنا إلا ما يكسمايو هذا شيخ لقوا بدري رحمه الله مركز تكتب مراكزتا إيه مساجد دا إيو وتكو أركيسا أرديسي ومركز طبعا كم موقتا أما مؤسسات تعليمية كتيرا أما برشادة ميرون أكسن كتيرا أما يعني أدياد أو فتسن تتكو ألغا يابا عادي هنا لأت شيخ وقوانين لكن داخل كعلمك شيخ وحوها قياداتك إيو هل دورك إنها أمد الصوماليات بو كميدها marka waajib in la hirgeliyo maxaa xiro inaga saaran xirooda inaga saaran inaynu wada guntano inaga dhamiyo ma aha markaas hal gobol kaliya uu fulin karo ama dad gaar ah oo saaxiibadii ama walaalihiisa ay fulin karaan waa markaas ka duwanaan doona macaahidda kale aynu haysanayno qaanay kaga duwanaan doona mawaada la dhigayo kaga duwanaan doona شيخ مثلا حيالو كوها من جري waxa kamid ninka caalimka ah fiqiga diinta barta in aanu noqonin fiqiga diin kaliya barta oo culumti maadiga diinta aan kala saarin marka qaarkood culimada qaarkood waxa laga yaabaa inay secularism ka cilmaaniyada ka soo horjeedaan oo yiraahdaan diinta iyo xukunka aan kala saarin laakiin haddana si aan toos ahayn iyaga laftoodu ay diinta iyo adduunyadii u kala saarayaan qofkii diinigu baranaya fiqi mujarrad baranaya laakiin culumti kale ee adduunyada la xiriiray
qofku waxa laga waxba ka garanay inaanu idaaraadkii ma waxba ka garanaynin inaanu falsafadii iyo mantiqii iyo logic ka baran baa laga yaabaa waxa laga yaabaa xitaa iska dhaaf management accounts waa weyn inaanu xitaa xisaabta basiidka ahayd fractionka xitaa inaanu xisaabin karin baa suurtagal haddana uu yahay faqiih diinta garanaya arrinkaasi wuxuu keenayaa naqsi weyn ku keenayaa inuu caalimku u fakaro si waasac kullama aqoontaadu ay meelo fara badan ay ka imaanayso kullama fikirkaagu uu markaa waasac noqonayo oo aad siyaalo fara badan aad markaa u fakarayso sheekhu marka maadaama isagoo laftiisu uu lahaa aqoomo kale sheekhu sarkaal askari buu ahaa kuliyadii tababarka ka soo baxay ee saraakiisha markii dambena macallin noqday marka maadaama malakooyin fara badan lahaa wuxuu ku baraarugsanaa inaanay ninka sheekha ku filnayn kaliya inuu minhaajka akhristo saxiix bukhari akhristo laakiin loo baahan yahay muslimiintuna saasay ahaayeen imaam shaafici isagoo imaam shaafici agu haddana wuxuu ahaa tabiib dhakhtar ah imaam raazi isagoo oo faqiih ah ayuu haddana imaam muxuu ahaayey weyn oo طبiga mutakhassis ku ah lama tirin karo culimada xataa magacyadooda ka muuqanaysa markaad magacyadooda fiiriso baad arkaysaa in badan oo ka mid ah ay mihnado iyo shaqooyin ay lahaayeen ay xambaarsan yihiin asmaadooda iyo magacyadooda sheekhu marka wuxuu u fakarayay in caalim mawsuuci oo ballaaran inuu soo saaro sax qofku qof superman ma jiro wax kasta ka jawaabi karaya laakiin haddana in malakada ama qaab fikirka caalimku ay waasac noqoto waxaana keenaya in culum fara badan barto macadkaas ama waxa la mu'assasada aqoonta ama caalimka lagu soo saaraya way ka duwanaanaysaa kuwii hore sidoo sheekhu fakarayay wuxuu soo saaraya caalim mawsuuci ah oo taariikhda wax ka yaqaana oo thaqaafa siyaasiya leh oo falsafadii wax ka bartay oo culumtii insaaniga oo dhan wax badan oo kamid garanaya diintiina u dheertahay marka hamigaas sheekhu lahaa marka meeshaas namuudajka ah la rabo inay ummadda muslimka oo dhan u noqoto gaar ahaan bariga afrika iyo geeska afrika khaasatan ay il u noqoto soo saarideedu waxay u baahan tahay in ummaddu iska kaashato waxaan ku khatimayaa qodobkaas waxaa sheekhu hadiga ku hamiyi jiray buxuud in la diyaariyo research la sameeyo wax la qoro waxaan xasuustaa isagoo kitaab albayc dhigaya inuu ardaydiisa ku oran jiray kitaab albayc aynu u baahannahay inaynu xaaraam iyo xalaal kaliya kala baranno ma aha okay baycaasina waa xaaraam kaasina waa xalaal waxaynu u baahannahay inaynu xal u helno mashaakilka dhaqaale ee ugu yaraan tuulada ama deegaanka deganta ku hareeraysan inaad xun xallin karto oran karto مثلا الإسلام كو حرمي احتكار إنه قف إن جاري أي وحياة جارة أي مارتي أي سجارة أي وجن أصلاً أمود أنت كان لودي هدي سعر برك احتكار كو كيني وكله أرد وإنه دراسة سمين كرا برنامج أبيح كرا داتا أورسن كرا دبادنا حطي سي معلومات كيس فقهي وبرنامج كرايا نظريات كلا يهدو حتى كجرانيو كوحن باري كرايا وحين دين تديرين بحث soo saari karaya xulul iyo analysis kadib uu marka maxaa xal u noqon kara wax kan soo tarxin karaya sheekhu wuxuu ahaa marka ardaydiisa qaabka uu tarbiyadeyn jiray wuxuu fakarayay in markas buxuud uu maaragtay la sameeyo de u baahan makaatibtiisi iyo librariyadiisi wixii u baahan markaskaas weyn marka qayb kamid ah in markas qayb baxthana marka uu yeesho culumta inta badan iyadoo takhasuska la tixgelinayo haddana culumta inta badan lagu daraaseeyo marka waxyaalo sheekhu fikray kuwaas ka mid darteed sheekha turaafkiisa dhiman maayo ardaydiisa baba hadda waxay u heelan yihiin inay raadkii u ka tagay duruus ahaa qoraal ahaa taariikh iyagu ay la noolaadeen ahaa iyo yawmiyaadkii maalmihii ay la noolaan jireen inay wax ka wada qoraan لجان لو حل صارن أو ريوي جرتا أو هوش أسكو هولا شيخ عبد الناصر حاجي أحمد رحمه الله حاجي يوسف رحمة واسعة قعن كحق تران أو ظالمت بعد شيء أجشي سي وقتي سي با هلكا كو إكا نفو لبنا وحيلاده أجل يا وقتي كو أن وأنا دافينين لكن غير ذا إيو قابك الله دمنا إيو وقفل بو دمنا إيو أياك لدوان waxaan rajaynaynaa geeridii u dhintay sheekhu inay khaatimo wanaagsan tahay shahaadana waa u rajaynaynaa isagoo masaajid ka soo baxay oo cashar akhriyay saa tilmaantay oo weyse qaba oo gaarigii uu fuulay ayaa lagu qarxiyay gaarigii
rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alxariiqu shahiid, qofka gubta oo jirkiisu dab uu u gubtay saa ugu dhintay waa shahiid buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. marka ilaahay shahaadan u weydiinaya subxaanahu watacaala, waana u rajaynaynaa shahaadadaas nuurkii iyo khayrkii iyo wanaaggii uu ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta la dhex joogay khayrkiina haddii la moodayo inuu sidaa ku go'ayo ma aha wax ku go'ayo. diintan ilaahay baa wata, had walba iyo xilliga la joogana ilaahay baa subxaanahu watacaala cid uu isagu u qorsheeyey ugu talagalay inay hormariso oo diinta ka shaqayso. sheekh cabdinaasir qarnigii hadda tegey ayuu sheekhu raximahu allahu tacaala dhexbartamihiisii buu sheekhu dhashay 1958 buu sheekhu dhashay. taariikhda dadka qoraa waxay qoraan 57 laakiin aniga wuxuu igu yidhi 58 way dhalashadaydu. taqriiban wuxuu hadda markuu dhimanaya jiray qiyaastii 63 sano taqriiban buu sheekhu jiray. sheekhu wuxuu ku dhashay Salagalooley meel la yiraahdo oo miya oo degmada Ceegaag ku dhow ayuu sheekhu ku dhashay raximahullahu tacaala raxmatan waasica. baadiyahaas uu ku dhashay sheekhu calayhi raxma. magaalada Ceegaag iminka la degan yahay oo deegaanka mantiqadaas oo sheekhu ka soo jeedo ka tirsan ayuu sheekhu ku dhashay raximahullahu tacaala raxmatan waasica. usro iyo qoys culimo reer miyi xoolo raacata ah oo asalka sheekhu ka soo jeeday. sheekhu aabihii wuxuu ahaa nin xaaji ah oo dadku markay xajka dhib badan u mari jireen, lug iyo dooni iyo markab loo raaci jiray dadka xilligaa ilaahay xajka u fudeediyey buu ahaa. caabid ah oo cibaado badan oo culimadii saalixiyada la oran jiray ee caanka ku ahayd wardiga iyo quraan akhriska iyo cibaadada ayuu sheekhu aabihii ahaa. waxyaabaha uu sheekhu nooga sheekeeyey waxaa ka mid ah aabbahay waxa caado u ahayd cibaadada xaggeeda maalintii 7 juz oo quraan u akhrin jiray. haddii reerku degan yahay miyiga iyo haddii reerku guuro oo sadcaal yahay buu akhrin jiray. reerku markuu guuro ee geedi yahay xilligii uu quraanka akhrisan jiray marka la gaaro geediga oo socda ayuu oran jiray dadkiisii oo maasha Allah baa joogay sii kaxeeya oo reerka halkii la soo sahmiyay reerka in lagu furo ayaa u yaqaana dalka nin ku dhasho ku weynaado kala yaqaan buu ahaa. halkii reerkii ku fura halkaasuu kaga leexan jiray geed hoostii buu masalihiisa dhigan jiray. masala la isticmaali jiray dadku haraga xoolaha laga sameeyo inta badan iyo weysadiisa halkaasuu dhigan jiray. intuu weysaysto sunnihiisa tukado ayuu kitaabkiisa quraanka oo gal u lahaa ayuu garabka ku sidan jiray, la soo bixi jiray. 7 juz markuu dhammeeyo ayuu ka kici jiray oo markaas reerkii intuu ka daba tago degmadii ugu tagi jiray. sheekhu halkaasuu ku noolaa. waxoogaa markuu sheekhu cumrigiisii gaaray waxaa dhacday sheekhu raximahullah raxmatan waasica tuulada Horofadhi baa reerkoodu soo duldegay. xilligaa tuulada waxaa joogay garaad Soofe Durraan. garaadkaasaa meesha joogay. garaadkaas inan uu dhalay oo markii dambe reerka garaadba u noqday oo garaad Cabdilaahi garaad Soofe Durraan ayaa malcaamadii ugu horeysay ama dugsi quraanka ugu horeeyay Horofadhi laga aasaasay macallin quraanka noqday. sheekhu wuxuu ii sheegay macallinkaas anigu isagoo nin weyna ayaan arkay macallinkiisii maxaan ku yiraahdaa xaafidul quraan ah. dhawaan buu dhintay muddo 5 sano 6 sano taqriiban wada aasan yahay. 27kii Ramadaan goor casara macallinkiisii quraanka markii tartankii quraanka 10kii Ramadaan la dhameeyay baa nabarkii geeridu qabtay isagoo masaajidka fadhiya inuu afuro xitaa waa diiday isagoo sooman buu macallinkiisii saa ku xijaabtay. aadna wuu u jeclaayo markuu arko wuxuu jeclaa inuu fadhiga uga kaco oo hadduu magaalada yimaado hadiyada u geeyo sheekhu raximahullah. dhammaantood Allah u naxariisto. malcaamadaasuu galay 15 juz oo quraanka ah buu halkaa ku dhigtay. 15 juz markuu dhigtay quraanka magaalada Horofadhi sheekhu waa ka wareegay calayhi raxmatullah. magaalada Burco ayuu sheekhu u wareegay. magaaladaas oo uu deganaa sheekha nina ilmaadeer yihiin. dariiqada saalixiyadana sheekheedii marka ahaa mantiqadan waqooyiga oo dhan fadhiday sheekhaas sheekh Cismaan la oran jiray oo sheekhu dariiqihii saalixiyada ahaa. haddana waxaa jooga sheekha wiilkiisii oo mansibkii iyo
mas-uuliyaddii culimanimo ku magacaaban oo sheekh cumar sheekh cuthmaan la yidhaahda haddana jooga nin sheekhu aad u qiimo badan isna ah sheekhuna adeer u yahay waxaa sheekha gacan weyn ku qabtay oo aabihiin uu kala dardaarmay barbaarintiisii tacliinta iyo cilmiga ninka ilmaadeerka ahaayeen sheekh cismaan la yidhaahdo oo sheekhu aanu ilaawi jirin mar kasta oo soo hadal qaado hadalladiisa iyo taariikhdiisa ka sheekeynaya ama taariikhda deegaanka laga sheekeeyo sheekh cismaan buu ka warrami jiray odaygu waa kala dardaarmay wiilka in wax u baro halkaasaa odaygu kaga warhayey oo masaariifta iyo nolosha wuxuu wakalka ugu soo diri jiray marcaamadii saalixiyada oo markaa meesha masaajidkii saalixiyada weyn hadda sheekh cumar baa dhisay masaajid weyn isagoo burco ku yaala aad u cajaa'iba ilaa maxaan ku yiraahdaa jaamacada ka furan yihiin halkaasaa sheekhu uu quraankii ka dhigtay ka dhamaystirtay kabacdi sheekhu raximahullahu tacaala iskuuladii meesha jir wax ka dhigtay berberu u wareegay barnaamijkani waxa uu hordhac u yahay barnaamijyo dhowr ah oo aan kaga hadli doono waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed la gudboon maadaama oo culimada haldoorka iyo qof kasta oo bulshada indha u ah ay kooxaha argagixisada ugaarsanayaan waxaana isdul taagi doonaa doodo qoto dheer oo aan la yeelanay culimo Soomaaliyeed waxaana doodahaasi ay ka dhasheen kadib markii aan aragnay dilkii Sheekh Cabdinaasir iyo culimadii ku horeysayba waxa ay bahda daljir ee Jubaland TV ay baadi goob u gashay raadinta culimo diyaar ah inay ka hadasho waxa uu noqon karo masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo sida ay ummaddu ugu midoobi karto cadowga had iyo jeer u taagan hagardaamaynta iyo ragaadinta ummadda inta aan barnaamijkan mid ka xiga aan ku kulmi doono waa bahda daljir oo idin kaga tagaysa sidaas iyo nabadgelyo